munaasabadan oo xariga looga jarayay dhismaha saldhig cusub ay ku shaqeyn doonaan ciidamada booliiska dawladda Soomaaliya lagana hirgeliyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa munaasabada xariga looga jarayay ka soo qayb galay saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Amisom xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska dawladda Soomaaliya madaxda howlgalka Amisom iyo marti sharaf kale halkan waa saldhigga booliiska ciidamada booliiska dawladda Soomaaliya ee dhawaan laga hirgeliyay gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana iska kaashaday dhisitaanka saldhiggan ciidamada booliiska ciidamada Amisom iyo dawladda federaalka Soomaaliya saldhiggan booliis ee laga hirgeliyay gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa uu qaban doonaa dhammaan howlaha ilaalinta nabadgelyada baaritaanada dambiyada iyo ilaalinta wax kasta oo ka dhan ah dhaqanka suuban iyo shariicada islaamka taliyaha ciidamada booliiska Amisom ee jooga Soomaaliya General Anal Bolay ayaa aaminsan in saldhiggan booliis ee laga hirgeliyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo wax badan ka tari doono la socodka xaaladda ammaan ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. As there were no further funds available, we sought the assistance of UNSOS, who contracted out the perimeter fencing of this building. As you may now see that the entrance is open, but it may not be for long, as UNSOS has also agreed to support the Somali police in putting up boom control at the entrance. Francisco Madera, wakiilka midowga Afrika Amisom oo munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay in Amisom ay ka go'an tahay tayeenta ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya. They are further tasked to provide operational support to the Somali police force so that in the shortest time possible they can take on the responsibility of providing the safety and security of the Somali citizens, the Somali communities, and ensuring a stable and prosperous Somalia. taliyaha ciidamada booliiska dawladda Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xamuud oo ugu dambeyntii munaasabadan ka hadlay waxa uu ugu mahadceliyay ciidamada Amisom dhisidda saldhiggan cusub oo ay ku shaqeyn doonaan ciidamada booliiska dawladda Soomaaliya ee loogu talagalay la socodka xaaladda ammaan ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. waxaan dhihi karaa shaqada ugu adag ayaga ahay waayo bulshada ay nala dhaxgalaan oo runtii waana arin adag waaye runtii inaad soo dhaxgashid laakiin ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ay ula shaqeeyeen aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen walaaltinimada ay noogu imaadeen anagana aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaan rabnaa waliba in loo soo kordhiyo waxaan kaloo rabnaa inaan halkan ka sheegno Soomaali booliiskeeda wuxuu qaatay aqoonta wuxuu qaatay tababarka wuxuu qaatay dib u dhiska waxaan markaan xafladan aan ka baxno kadib dugsiga booliiska aan ku xiri doonaa 200 ilaa 300 oo ciidan ah oo ka qalin jibinaya maanta oo muddo 9 bilood ah tababar ku jiray ciidanka Amisom ee jooga Soomaaliya ayaa ka kooban ciidamo booliis iyo military ah kuwaas oo dawladda Soomaaliya ka caawiyo soo celinta nabadda dalka hayeeshee waxaa jira cadaadis dhinaca nabadgelyada ah oo inta badan kala kulmaan xarakada Al-Shabaab. Aweys Maxamuud Jilacow Royal TV Muqdisho.